بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أرين سجلت أن ربنا نكهله وحوي أرين يقول عذي شلي إن برلمان كمان أنت يقدم بيس الحرية إن حل دماغنا قار كمدة فverbally يعني هذا الآن يقول أتحقق رئيسي وحلا لقد ذي إن أرين تسأل ربنا الصحية إن لك أجنبي بنجي لو دي بكرة oo dastuurka mise sharciyada ahaan oo bangiga u dejigsan inay tahay in loo dhiibi karin ajnabi marka arintaas baa la rabay in la gudbiyo la bedelo oo la keeni karo ajnabi marka anigu xildhibaanada de waxaan kala fikir laakiin taamo isku imaanin oo xildhibaanada ay ag fadhiisan la hadlaan ku dhaay ma xal igu diidina hadla marka waa dadka dhan wada hadlayeen anina hadla rabay fikrad ka duwan baa haystay أن ربي الله بدأ نعبئنا نقن أيه مرك بولي ما بك حلنا لكن أرنتنا روحي له هذا مهمة وهذا جوان أنك جارنو لنا أي سيدة كوبرناية مركي إنه تهاي وح بدل وين كانت دونتا ودن كم ونفعنا مركا أنا فكرات كدون بهيستي تهاي فكر الله بدأ نعس لها يبلغ كوكان عيدانان ونربينا كهلا for the first time كهلا مركب قدال بان فديه هراء ونصاف فديستي حلا بدي حد ما أنا هاري بيجا فديان وأنا آخر كيان نستغل دونه وان سلامي إسلام أمين مموين عن حشمة وهايو مركز صحبرية عنده هوية ويجا جاية سهرين بسياسة ده حل ديوان هاي المدة وحبضنا marka mid kamid ah xildhibaan kamid ah ba markii arintii la dhama bala hadlayaba oo gacantaag bala sameynaya gacmaha hala taagala dhahay dadkii gacmaha taagan ugu ma aan taagan aan ka samaamada kala ag fadhiisan ku haw waxaan feer ma ahan markaas waxay ku dhahay afka ku hadlaysi waa af ajnabi qofka diidaysi inuu gacantu taagtan waa ajnabi marka waxaan ku yiraahdaa anigu Soomaali baan u dhashtan ku yiraahdaa ajnabi ma ku dhahay baasaboorka waa ajnabi markaas waxaan ku yiraahdaa بدنا هذا ذا المدحوينه هي رئيس وزراء كل بودا جنبي بيودين سبدي الأساس لو أركم لكن أصل كنا صومالي بنا إحنا ودت كنا بدي وصلنا على كل حال تاس بهاد عدد ما نكتشوك رجوجين كلا سؤالي كرتها مس ستوري وان وادي كاسات عايشة وقرت مركب واحد إيشك تا الرنتاس كدي محل عاي مركب كدب وهذا اللي بيقول هذا عن يقول هذا مرد محكو هذا هذا الكاس مركز حنقول هذا أفكي أنا لو حرام هذا كلا بورسير بيودتي بورسدي وحي كسو بخيس من دير ولا باك النايف لا دهو جيب كلا كشتو on loo yaqaan xilwaanta markaas inay wado markaas qof markay istagaalaan sheegaa inay mid wadato laakiin waliga xaadir ma arkin adigu way soo qabsatay way soo garb istaagtay markaas waxay ku dhahay hadalka hadda dib ugu soo celi waan ka filan waayay qof hadda aan salaamayo waxaan waa siyaasad moogtaa qof walba dhinac curu aadi kara ma garanay in siyaasad xageeda ay gal dagaaltamayso am saarin kale marka way soo garb istaagtay hadalkii ku soo celi bay dhahday waan iska fiiriyo wasiiradda ugu dambeysay waxay ku dhahday gabadhan dhali karto way iska daayo fadhiiso maanta mana marmaysa way iska fadhiisatay marka kadib waan la fasaxay waan baxnay banaankii baadana isku qalaaf meeshana ko wada joogno maxaa la dhihi jiray aan arimiyaha dadka soo qabsan rabto wixii soo baxsata baan iska aangelinay gabadh walaashay marka shaqada laga soo qaaday anigu walaashay gaarina naga dhacays iyo driverkayga imaadeen oo marka parking ku sugaya maxaa la dhihi jiray arkeen albaabkii laga soo deganaya dagaalka ku bilaabay muqt waxay gabadhu waxay aragtay badan isku shumay way soo baxday marka taal walaashada meesha lagu soo booday of course qof walaashada oo qof lagu goobanayo soo orday muqt markay soo orday wasiirka meesha joogo wasiirka diinta magaciisa ma garanayo laakiin wasiirka diinta iyo khilaafaadka ma laha ba meesha taagnaa gabadhii hore laga xiraba oo gabadha waxay u qaateen inay dagaalkii qofka qof walaashiis dagaalkii inay galayso camal oo kale ayadana way ogtahay ma taaban karto xildhibaan oo xiligeedana ma ku shaqo jaamin waxa kale waaba la qabtay markiiba waa la xiro dadka inta igan aniga dagaal ku jiro haba qof dhinac iga jiiday maxaa la dhihi jiray gabadha walaashay marka waa la xiro anigu marka miir waxa igu soo noqday walaashaa way xiran tahay gaariga ay fadhiisay marka waya cidda amarka walaasha lagu xiray bixisay tahay marka ba ogaatay la yad marka weydii xalda wasiirka iyo gabadh maamada la socotay oo xildhibaanada saaxiibadeeda ayaduna dhinac iga jiijiideysay oo marna iska dhigeysanay qabanaysa marna dhinac oo labadooda isku jeedo u socdeen ba oo amray in la xiro marka wasiir iyo xildhibaan bay kala ahaayeen oo wasiirkana xildhibaan uu yahay marna oo wasiirka diinta marka dadka saas igu sheegeen
markaan aaday gaarigii ma kaxeeni mogtahay gaarigii oo daba maxay meesha waxay ka dhacaysaa baarlamaanka way arrinta hadda wali ma baantay gaarigii inta ay geliyeen gaarigii inta oo taga askarigii aan ku dhahay gabadhi walaashi maxaa loo xiray aniga qof dagaal ka soo baxeen gacanteeda doona tusra gacmo dheer waxay waa calaamaysan tahay xataa askarigii inta soo jiido dharbaaxisa ay soo qabtaa laga qabtay markaas gacanteedii hadda way calaamaysan tahay waxaan ku dhahay ujeedii askarigiina inuu rafaadinayo oo liiga qabanaynin oo maxaa la dhihi jiray dharbaaxina ii soo qad inuu igu dhufto laakiin ma igu dhufan waa laga qabtay laakiin he threatened me oo waa daw ii hanjabe maanta adigu inta dhan ma uu si jeedo walaashay muuqato laga xiro wax lagu xirnay ee jirin oo qofka dumisan aniga ah ala kulli xal marka kadib way baxdo saldhiga la geeyay waan u tagnay anigii xildhibaano kale iyo wasiiriin baa soo soconay xildhibaan kamid ah baa soo damintay xildhibaan kamid ka wuxuu ilaahay ka dhigay inuu noqdo xildhibaan in yar ka soo hor arrimo ay dawladda ka shaqeeyaan ka soo horjeedo maadaama xildhibaanka soo damintay la soo daayay askarigiina waa lagu xiray oo soo daayay inkastoo amarka xataa kii ka sii weynaa ka soo qaatay waa la xiro xalo dhan buu soo wactamay soo calaaday taawa ko maadaama maxaa la dhihi jiray macaaradka oo ahaa loo xisaabinayo baa haddana arintii loo sii dawlad waxa laga sii dhigay wax kale oo qof anina macaarad aan weligeed dawlad macaarad aan ku noqon dawladana weligeega farmaajo qofkii ugu horeysay oo publicly dadka xataa support garanaya hoosoosay uu aamusanayo aniga ku soo anaaskariyo qof walbana garanayo maalin iyo aakhir liiso sajina aniga buu ahaa oo qof kale aan maxaa la dhihi jiray kala tashanay aan kala jeclayn madaxweyne kale aan ka fikirayna qof lacag ku siinayo aan waxa u qaadan dartiisa aan u qaadan aan support garay marka weligeed dawlad ma soo jeedin gabadhi hadda xaaladeedu xagee ku dambaysaa gabadhi maanta ana ko safar u socon oo gudoomiyaha baarlamaanka guddigiisa aan ku jirno oo rabnayna baaldhabo aano calaamisaha ka qayb qaadano ba airportka ma garanayo dad baa call sameeyeen la gabadhii way joogtaa oo bixi rabtaa ma garanayo ala kulli xaal amar kor laga soo bixiyay gabadh inta loo imaaday askartii jiidan anoo dhahay anay xildhibaan banahay haddii xataa bixi kan ma bixi kartin tay ku dhahay tartiibtan dib u noqonaynaa kiiska intuu ka dhimaanay bixi kartin ma safri kartin loo tartiib u noqonaynaa maya waa in la kaxeeyaa waa la soo kaxeeyay anoo qeylinayo dhahay ma kaxeynaysiin wasiir qeylinayo xildhibaano qeylinayo diyaaradii anagoo korayna laga baaji oo sababna la ii sheegeen oo lama bixi karto hay haday bixi karin waa wada joogana macna mala laakiin gurigeena ku noqonayna ma waa in la xiraa saldhiga la geeyaa sidii lagu soo xir ala kulli xaal meel kasta maray gudoomiye la hadlay xildhibaano qof walba horta waxa aadaba gabadhii xildhibaanada oo ayada dagaalka asagana waa dad aan isku cid aan nahay waxayna si family baa loo xalinayay ibilka horeba ma ahayn in ra'iisul wasaare involve soo noqdo ra'iisul wasaaraha involve laga dhigo markay u tageen dadkii xaqiiqi matalayana ma isku arkeen wuxuu ugu jawaabay wuxuu dhahay gabadhi way dumsan tahay la soo dumiyo la soo jigaskin lagu soo xaq asoo aniga story-gayga ka warhayn oo loo sheegay xataa dabcan is dhahaya oo ka warhayn already defense mode oo wuxuu galay gabadha inuu protect garanayo ma fahamtay waya marka in walaasha la xiro iyo in arintii bangiga dhexe baarlamaanku meel mariyay walaasha loo xiro sidee isku qabanayaan marka xagee iska leeyihiin anigu waxa la ii waday anigu maadaama xasaanad alle xiri karin qofka ahelkii ugu soo dhibaa laga gajaraya so aniga waxa lagu cabsi gelinaya aniguna government kan maanta jirto anoo markasta saan u sheegay government aan ka soo horjeedo aniga sharci ahaan waxaan ku soo bartaa ama u ogaan u garanay marka xildhibaan tahay sharci baa dejisaa waa sharciga wadanka ma fahantay wixii aad ku dartay waxa ka jirtana waa wax wiligiisa soconayso adigoo markastaba ay haday wanaag keentana wanaagiisa qaan smaatade keentana xamaasiisa qaan sax walaal adigu sida u tahay marka taabaan aaminsanaa taasana xambaarsanaa madaxweyne wasaarana waa dad oo de noo haayo maxaa la dhihi jiray hool noo wado aan anaka u dhiibanay ma fahantay marka hadii arimo ayaka ka soo shaqeynay u arkay inay keenayso wadanka wanaag waa dhici kartaa fikirtooda inay u arkeen wanaag inay keenayso ee ka wadan xumaato way dhici kartaa wayna dhici kartaa inay taa u arkeen ma fahantay oo aniguna ujeed marka say u sheegeen anina u arkay inay qalad tahay oo ka imaan karto dhibaato maadaama wadamo badan baa la soo dhaqmaan soo arkay wadanka sana xumad qaybta ugu muhiimsan qof wadan meesha u dhashay baa hayo qof ajnabi anigu waa wada soo shaqeysan wadamaha ajnabi waan ka ahayn oo waxaan ku ahayn qaxooti wadamo kale ku ahayn waana ka soo shaqeysan laakiin qaybta u weyn oo maxaa la dhihi jiray de bangigii weey ma fahantay oo maaliyada Soomaaliya soo galayso marka
in qof ajnabi uu ka shaqeyn kara laakiin qof ka sareey marka saxiix ugu dambeey markastaba inuu noqdo qof wadani ah taas aan fikirkeyga marka aha laakiin fikirkeyga ma aan qof dadka namigu raacay karaan ala kulli xaal way marka gabadha kula dhalatay aad ii sheegayso inay xiran tahay ma xaqiijisay in kiis iyadu ay geysatay loo xiray iyo in adiga awga loo bartilmaameedsaday ma kala xaqiijisay si kala xaqiijinaa ma taagnaay aniga kiis iyadu walaashay inay geysanay kiis anaa u taagnaa kiis kan aniga ku socotaa xildhibaanada isdagaalna aniga gacan is saarnay ma fahamtay gabadha walaashayna way soo dooneen oo soo kaxeynayeen oo gaari bay ka imaad shaqo bay ka imaatay ma fahamtay marka ayadu kiiska ee lagu waceenay ma jiro kiis aniga lagu wada way waxa gabadha loo tarjargalayna darteeda waa ma aniga maadaama li arkay inaan ahay qof mucaarad aan la saaxiib ahay dad aniga dawladda ma qasab ma aha inaan la saaxiib wax dawladda la soo u ah hogaam u ah aniga xildhibaanaha dadka kulligood war kii maxaafid ay kii mucaarad kulligood waxaan la saaxiibo dad waxaan dhaxmar kartaa ganacsi wax baan dhaxmar kartaa sama laakiin haddii maanta lagu arko qof mucaarad la socdo loo bari waa adiguna mucaaradkii baa tahay oo mucaaradka lagu xina anigu mucaarad iyo dawladda burburi waligeey ma ka shaqeyn dad si gaar ah kugu yimid oo ku yiri walaasha waxa loo xiray in dadka mucaaradka aad gacan saar leedahay ma jireen waa badan tahay so many dad badan baa horta intii arintan dhicin bal igu dhahay is ilaali because mar baan waxaan aaday Emiraatiga oo daaweyn anigu waxaan ka soo jeedaa degmada ani South West baan ka soo baxay degmada baraan ka soo jeedaa shawani daacun baa ka dhacday markii la haystay wasaaraha iyo motion laga wada madaxweynaha la haystay motionkii wax ma ku jirin waan ka dhaxbaxay daaweyn baa dadkii u doonay ani waxaan leeyahay organization baan leeyahay ma fahantin tan xildhibaan noqon ba organization ka lahayn marka magaca maadaama xildhibaannimada aan ku doonin karin oo labada dawlad isdhaafsan yihiin organization ahaan caawinaad u doonto organization bay soo siiyay daaweyn ayagu waxay u arkeen marka inaan ahay xildhibaanad mucaarad oo dawladda ay ka soo horjeedaan doonto wax ka doontay marka dad kale baa anigu wax toosan ma ahan hadalo isdhaafsanaa dhowr mar baa la ii soo diraa hadalo iyo wax marka waan u dareemayo inay saa tahay kiiskan waxaan u arkaaba maamooyinka ila dagaatan waligeena kali ka cudmo isdhin xushmo waxaan ma aan haynin waligeen marka inta xad la soo waxaysmaan waxay la noqoto wax dil cajiib ah ma fahantay marka waxaan u dareensanahay inay ii arkaan inaan qof darad ku ah uma ku ihi wiligoodana way ogaayeen ma fahantay maantana arimaha saan lagu sameeyay aniga waxaan dareensanahay dawladda u dagaaltamay markastaba aan u taagnaa inay anigu maanta in yar xataa wixii si fiican u haysan xataa inaan maanta lagu xumeeyo oo gabadha walaashay loo xiro waayahay saad ii sheegtay arrintu waxay ka bilaabatay in xildhibaano aad isku qabateen arrintii bangiga dhexe ee baarlamaanku meel marinayay shalay marka dadku waxay isweydiinayaan dawladda iyo mas'uuliyiintan aad ii sheegayso oo ilaa wasaaruhu ka mid yahay sidee ayay adiga kaala safteen xildhibaanada kale oo adiga culays lagu saaray xildhibaanada kale ay waxay jecel yihiin sameynaysa marka waa xildhibaanad fikirkooda la qaadatay maadaama la qaadatay waa qof waxaa loo arkaa maxaafid si u dhahan aniguna waxaa la arkaa mucaarad maadaama intaan yaran fikirkan isku raacin waayahay ra-iisul wasaaraha ayaad ii sheegtay inay u tageen dad adiga dhinacaaga ka socda oo arrintan xalinayay dadkaas hadalka rasmiga ee ra-iisul wasaaraha dhinaciisa ay kala soo kulmeen ama ugu dambeyn uu kusoo yeeray muxuu yahay anigu waan ag taagnaa anigu ra-iisul wasaaraha maan isla hadlay sababta tahay markasta fursad maba la ii siiyo mana la hadlo mana markaan arkano markasuu mashquulsan yahay maadaama aniga meeshan taagnaa waxay dhahayn waa maqlaya marka wuxuu arrintan gabadhii buu saaray inay tahay victimkii already asagoo storygayga maqlin saan hadalkan ka dareemay aniguna waxaa liiga soo dhigay qofkii ahay qofkii inay xumeeyo ataagaray marka wuxuu yiri arinta gabadha ayadaaba kacsan oo la rafaadiyo isbitaal jiifto la cijeesto la sakiimeeyay ma garanaysan u dajin laakiin oo isku imaan doonaa oo isku imaanayna buu ku yiri dadkiisa socona waya marka ma jira in dibkaas la sheegay marka xildhibaanada uu gaaray anigu dad isdagaalayo ay horta waxaan arkay in midin la ii soo watarto waan arkay koob hore laakiin ma dagaalka asal galeen midadii inay soo baxsatay in kala ma ogi gabadhana markii ilaahay baa hadadan la soo hadlay askari meesha jooga baa wuxuu marqaat askari mu qof meesha jooga wuxuu marqaat furay inuu askari qaxay meesha jooga qalin yar miya ma qaan xaqtan meel ka gaarto in yar dhigtay laakiin waxa waa dagaal qofkana waa qof in yar iska weyn ma fahamtay anigana marka qof inta maalin la keena maamo baa ii gartareysato every day barnaamijkaas waa la rafaaday ilaa waligeena ma soo bandhigan ma sheegan waan ka sii socdaa qof hooyada kale ma la murmi karto ma fahamtay ala kulli xaal anigu horta hadee wax garfaad ay gaartay ciyahayga baa gaartay ma fahamtay iyo inta la jijiiday maamadan waxa la sheegay in yar xanuunsanado sokor qabtay oo ay sokortii ma garanay ma ku kacday ma garanay adigu kuleyba sokor bay qabtay lagu sheegay ma garanay
laakiin anigii ayada waan isdagaalnay aniga garabkii meel kasta laga soo garaacay calaamadan haddan ku tusi lahay laakiin waa qarsananta gudaha ku jirta marka isbitaalna wax lama aadan ayagu laakiin case bay doonayeen inay ku sameeyaan oo haddana case-kii inta aniga liigu soo waceen lahay anigu wax ma laga qaadayo ani ayadu waa xasla aadanay ilaa meel kasta noqoto moogta laakiin gabadha walaashay masaakiinta meesha ku baabado ayada qabta la xiray oo wasiirkii haddana maxay igu sii daran wasiir diin oo loogu talagalay inuu run ka shaqeeyo diinta qofta diin waxaan aaminsanay in shaqan weeyaan aan garanay shalay xataa xalfadu la joogo walaa inuu fiirin karo uu ogeeyo wuxuu qaladku ugu sameeyay walaashayna la soo daa alxamdulillah laakiin hadda waxa laga shaqeeyay loo celin lahaa hada ala kulli xaal waxay noqotay waxaan aaminsanahay gabadha walaashayna dulsan tahay aniguna aas xildhibaan ahaan xasaanadii iyo sharciyad ahaan xataa ina wixii aniga lagu talgalay aan inta ilaa xad aan qof gabadha had walaashay hadda xataa wakiilin kara xildhibaan kale maadaama walaashayta wajtaa laakiin la dhaho qof wakiilan karo dad la dilay oo qof dilay laga soo saarayo gacan dhigna ma ay galin in la toojar gareeyo saan loo toojar gareeyo oo la dhahay haddana amarkan waxay ka socotaa office-ka ugu sareeyo ra'iisul wasaaraha soo gudbiyay ilaa asaga ka soo amray qof daan kana ma jirto waxay ugu noqotaa arin xanuun badan aan ka filanayay inay dawladda maanta joogtay igu sameeyay aniga ahaan qaas ahaan sababta weligay dawladda waxaan calaamad mugeysan anigu waayahay gabadha hadda inay xirantaad ii sheegtay hadda xaadarkan aan kula hadlay waa xirantahay maanta dhan baa orday ilaa xataa anigu markaan aaday xaggan airportka askariya inta soo istaago dhaayay xildhibaan munama wadaa munashaq xataa askarigaygu qalqal waa cabsi because ama waxaan driverkan because hal qof baa ii saaran imkaari markaasna waxa lagu leeyahay dawladda markuu lagu haysato isjir naftaada isku jir marka aniga cabsi baan markaas lagu dhaca isjir ma heli kartay xildhibaanaha qaarkoodna ayagoo hooy wax walba u jeeday heli karno dantooda iyo doontooda ka raacdaan naftooda badbaadsadaan ma fahantay laakiin dadka shacabka saan mu arkaan qof kasta waxaa lagu waxeenayaa xildhibaana laga dhigayaa inuu wax dhib geysto laakiin markay naftaada imaado qof walba naftiisa hormarsinaya ma fahantay waayahay marka hadda waxaad ii sheegtay in laga reebay gudoomiyaha baarlamaanka raaci lahaa adiga maxaa ku soo celiyay si shakhsiyana miyaa uga har lagu yiri diyaaradda mise kiiska gabadha aad u hartay kiiska walaashay hadii diyaaradda ay ila socoto anigoo meeshan ku hayay ma gabadha walaashay waxay ka soo kortay Mareykanka hadda lay ku cusubtay meesha sababta lagu hayaa ani darteed inay tahay ma inta ugu tago aniga diyaarad raaci kara ma raaci karo marka ma ina dawladda u saacato markaas ay joogto ay jirta aniga markii gabadha walaashay jeelka lagu hayo for no reason loo xiro xasb loo geeyay oo la haysta ma aniga dawladda arrimaha ka soo shaqeeyay u saacato mi kara marka dawladdaas aniga ana haddadan u hagaamsanayo u socod calaamad saarto waxa ay ka soo shaqeeyeen ee tahay ma haddana aan inta ignore gareeyo ma ka tagi karo la shay of course asaas oo aan marka waa anoo adu idhaahday ka haro kale waayahay marka arintan xildhibaano iyo cid mas'uuliyiin kala oo ilaa hadda soo faragelisay ama kaala hadashan ay xal sameynayso ma jirtaa xildhibaan badan oo joogto oo og in dulmi lagu sameeyo bay jiraan oo aniga i soo wacinay waxay ugu dhahnaan ka xumanahay xildhibaan arintan kugu dhacday ma garan karo hadda in xad dhici karto xaalkii inay xaaji ku jiro la hadlayeen prime minister kamisa arintii xalinayeen laakiin waxa kale baan ku xisaabtamay maanta xildhibaankii maanta ila taagan hadoo bari afka la ku hadlo waa dareemi karaa sababta ugu hadlayo mana uu xanaaqayo sababta taa waan garan karaa waa gartay ugu dambeyn maxaad codsanaysaa marka oo ama fariina oo aad diraysaa aniga waxaan codsanayaa maxaan rabo horta inay ogaadaan government-ka iyo dawladda maanta jirto inay horta anigu qof ahaan inaan u ahaan threat saaca waa xisaabsan tahay maalmo way wax walba 4 sano 2 sano baa ka dhiman hadii fiican yihiin soo noqon hadii xun yihiin waa lagu kala tagayaa mana ka shaqeeyo dawladda barbariyo wiligeena ma ka shaqeeynin marka laakiin qof waxaan ahay opinion leh haddaan aaminsana wax inay qalad waan sheegaa laakiin dawladda waxaan ka codsanayaa arinta hadda u maleeyay inay xal tahay oo xildhibaanahana loo maxaa la dhihi jiray cabsi lagu abuurayo xildhibaano qaarkood ay wax walba u jeedaan iska ina diray walaan horta aan waxaan aaminsanahay qadar Ilaahay subhanahu wa ta'ala inay wax walba ku dhacdo naftan inay marko aysan waa aaminsanahay haddii maanta qof in sabab ligaaga dhigan oo qof walba dhahayo dawladda ka soo horjeedo ku dilayaan oo dawladda cabsigaas dadka ay geliso especially dadkii soo doorteen oo xildhibaano ah horta inay arin qurux badan inay saas u ogaadaan rabaa inay saas u ogaadaan oo anigana maanta hadda gurigeeyan ku xareysanahay cabsi ka qabay inaan balaan ku baxo maanta askariga inta kaliya yiri igu dhaca oo inta ay geliyaan waan ka xumaa ra'iisul wasaare wadan dan inuu soo gal arin laba dumar saddex martay haddii xataa dawladda aan ka soo jeedo idin u yeelanaysa xataa oo isku tol ah inuu soo dhaxgalo oo amar buux ka soo bixiyo oo askarigii markii soo la soo damiinta oo xiro
وأسجن ما دام دقني من فلا وحش كذا قبيل وبدل لكن هالقبيلنا استقعش إنه صور حكى له أنت ما كفرني نزوزار ورتا منا مدي سكست هاو حماده أنت ما يقول وينا لكن هذا ما أنت كذب وحنو أركا it's just وحكستان كفرنا يا مركا كذب ما فهمتين مركا waxaan jeclaan lahay dawladda inta jirto labada sano sii jirto inay haday isku day karaan inay wanaag ka shaqeeyaan wanaag ku sii dhameystaan ee cabsida iyo maxaa la dhigi jiray hadna la dhahay social media da ka hadashay walaashiis iyadoo oonaysa sasbal idhooya satal idhooya stop talking haka hadlin kana ka hadlin hadii qof walba qalad arko la dhaho aamus maanta sharci waxa soo dejiyay wixii dawlad ka wada shaqeeyo inuu ka hadli karo siyaasad gali karo arrimo siyaasad gali karo oo waanayo shaqadiisa iyo waxay sii زيادة وأرونا دولة إن لذا حشمة إلى حد وانكو حشميتها وحقار قضايا كيسوس مين وانكو حشمية ويجرا وأنا دولة وحي مدينين إن الحشمية إلى حد لكن إن لغو عيارة محلديه جري سلسن كإيو دولة أدو كل الشقيس حقوق ضادة إن أديك أتستد إن كبرجو أمين باور وين تهاي ما فهمتي ليس تاس إن نقطة حل ودن مو مالنا تاس إن نقونيسا marka waxaan jeclaan lahay dadka Soomaalida shacabka naftigooda inay noqdaan mar unba ay dhig isku yeelanay wada kacaan ay wixii dhibaay ay u arkaan qaldina tahay inay maxaa la dhigi jiro qabiil iyo waxaan inta laga saar wadanimo iyo Soomaalinimo ay u hadlaan way aad baad u mahadsantahay xilmaan mana ku mahad celinayna aad ma santahay